madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa munaasabad ku qabsoontay madaxtooyada qaranka kaga gudoomay warqadaha aqoonsiga danjirnimo safiir ka socdo 8 dal oo kala ah Masar, Indonesia, Sweden, Canada, Finland, Norway iyo Spain. madaxweynaha ayaa ugu hambaliyay danjirayaasha xilka loo soo igmaday ayaa la wadaagay in dawladda iyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya ay soo dhaweynayaan kuna garab siinayaan gudashada waajibaadkooda diblomaasiyadeed kaas oo ay ugu horeyso xoojinta iskaashiga iyo xiriirka laba geesoodka ah. dhankooda danjirayaasha cusub ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaarsiiyay salaan iyo fariimo ay ka sideen hogaankooda dalalkooda waxayna muujiyeen inay mudnaan siinayaan xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeya Soomaaliya iyagoo ka mahadceliyay qaabilaadda iyo soo dhaweynta loogu sameeyay madaxtooyada. munaasabadan ayaa si maamuus sare leh uga qabsoontay madaxtooyada qaranka iyadoo ay ka qayb galeen cutubyo ka tirsan ciidanka qalabka sida oo salaan sharaf ku maamuusay danjirayaasha warqadahooda u gudbiyay madaxweynaha jamhuuriyadda. bismillaahi raxmaani raxiim. maanta oo ay taariikhdu tahay December 3 2025 waxaan qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed ee Villa Soomaaliya warqadaha aqoonsiga oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya aniga wasiirka arrimaha dibadda aan kaga qaabilnay safiiro nooga kala yimid dalalka aan saaxiibaan nahay ee dunida caalamkooda. safiiradaas oo ay ka mid yihiin safiirka dowladda Egypt u fadhin doona Soomaaliya, safiirka Indonesia, safiirka Sweden, safiirka Cuba, safiirka Canada, safiirka Finland, safiirka Norway iyo safiirka Spain inay maanta warqadahoodii aqoonsiga ay ka gudoomay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud. tani waxay tilmaan u tahay in xiriirkii caalamiga ahaa ee dowladda Soomaaliya uu gaaray meelo badan oo ka mid ah dunida. waana soo dhaweynaynaa dalalkaas walaalaha iyaga ah ee noo soo diray safiirada. waxaana wada yeelan doonaa wada shaqayn dhow oo aan ka wada shaqayn doono dalka sidii horumarkiisa iyo dib u dhiskiisa iyo amnigiisa looga shaqayn lahaa. aad iyo aad u mahadsan.